waxaa laga qisayay ama laga sheekeeyay haweeney waxa ay samayn jirtay rooti waxayna u samayn jirtay qoyskeeda waxayna ku diri jirtay mid ay aad iyo aad u wanaajisay ee ugu talagashay dadka jidka maraya ee masaakiinta inay cunaan waxayna saari jirtay meel daaqad ah waxaana soo mari jiray nin oday ah oo masaakiin ah oo tugsado ah waxa uu qaadan jiray xabadda rootiga ay sida wanaagsan loo diyaariyay waxa uuna oran jiray haddii aad shar samaysid waa mid ku sugayso haddii aad kheyr samaysidna waa mid hortaada ah ayuu dhihi jiray ereyadaas ayuuna ku soo celin jiray maalin walba uu soo mara oo rootigaas qaato isla ereyadaas ayuu ku soo celin jiray haweenaydiina waxay aad iyo aad ula yaabtay ninkan odayga ah ee aan u ducaynayn guriga iyo qoyska ee ereyadaas dhahayo haddii aad shar samaysid way ku sugaysaa haddii aad kheyr samaysidna waa mid hortaada ah waxayna maalin maalmaha ka mid ah ay go'aansatay ninkan odayga ah ee xabadda rootiga ay diyaarsay qaata in ay u sumayso rootigaas asagoo dhanba ay ka taqlusto waxayna rootigii ku dartay sun waxayna u saartay daaqadii markii daaqadii ay saartay ayaa waxay isdaaday maanta ma qof muslim ah wax dembi kaa gelin ayaa dilaysaa waxayna go'aansatay inay suntii ka celiso rootigii sumaysnaana waxa ay ku tuurtay dabka waxa ayna samaysay rooti kale oo si wanaagsan ay u samaysay waxa ayna u saartay daaqadii ninkii odayga ahaa waa imaaday waxa uu qaatay xabaddii rootiga ah waxa uu yidhaahday haddii aad shar samaysid waa mid kugu soo noqonayso haddii aad kheyr samaysidna waa mid ku sugayso sidaas ayuuna isaga tegay maamadan ama haweenaydan samaysa rootiga waxaa jiray wiil ay dhashay oo ka maqnaa in muddo ah waxa ayna rootigaas ay samayso maalin walba u sadaqayn jirtay in uu ilaahay wiilkeeda ugu badbaadiyo asoo nabad qabo oo caafimaad qabana oo ilaahay guriga ku soo celiyo waa ayna ku ducaysan jirtay subaxdaas ay rootiga ay sumaynaysay galabkeedii ayaa albaabka la soo garaacay haddii ay furtayba mise waa wiilkii in muddo ah ka maqnaa oo duruuf aad iyo aad u tiro badan ay ka muuqdo dharkiisii ay dhammaadeen asagana macaluul tacbaan la ah iyo haraad ay ka muuqato iyo daal way soo dhoweysay waxa uu naga sheekeeyey maanta wuxuu yidhaahday aniga oo ku sigtay in aan geeriyoodo oo meel ka baxsan magaalada ee intii aan soo socday ayaan ku dhacay wax ay badbaadiyeen waa waayey aniga oo iska alo dhulkii ayaa nin oday ah oo masaakiin ah oo hal xabo oo rooti wato ayaa ii imaaday wuxa uu yidhaahday odayga ay fadhiisay wuxuu yidhahday wax aan ku siiya ma lahan waxaan xoolo ka wataa halkan xabo ay rootiga bal cun waa intaasaad magaalada ku gaartaa rootigaas markii aan cunay ibiis ku cabay aan xoog yeeshay ayaan soo baxay haweenaydiina waxa ay soo xasuusatay odayga ereyadii u dhahayay waxayna ogaatay rootigaas inuu ahaa rootigii ninkii odayga masaakiinka uu siin lahaa haddii oo aysan gubi lahayn oo odayga qaadan lahaa waxay ogaatay inuu ahaa in uu wiilkeeda cuni lahaa rootigaas uuna ku dhiman lahaa uusan imaan lahayn waxayna fahamtay macnihii odayga ereyga ahaa haddii aad shar samaysid waa mid kuu soo laabanayso haddii aad kheyr samaysidna waa mid ku sugayso ilaahay ayay u mahad celisay wiilkeeda u badbaadiyey ayadana halistii ka badbaadiyey waxaana qisadan ama sheekadan ka fahmaynaa haddii aad tahay qof kheyrka sameeyo inaad kheyrka ku dadaashid aadan ka caajisin haddii aad shirlow tahayna sharta iska daysid oo usoo noqotid kheyr